Isbitaalka weyn ee Jaamacadda Uppsala ee dalka Sweden ayaa lagu soo waramayaa in qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalkaasi la sumeeyay kuwa oo hadda ku jira xaalad halis ah oo dhanka caafimaadka ah. Booliiska waddanka Sweden ayaa sheegay in ay tuhmayaan in shaqaalahani la sumeeyay, waxa ayna intaa ku dareen in kiis ahaan ay hadda u diiwaan geliyeen isku day dil ah, inkastoo shaqaaluhu weli nool yihiin oo lala daba joogo daryeel iyo sidoo kale daaweyn joogto ah. Sargaalka u qaabilsan baaritaanada oo lagu magacaabo Emma Hogström ayaa ku waramayso in ay hadda baaritaan wadaan, baaritaankuna uu yahay mid hordhac ah oo aysan jirin cid toos ay uga shakisan yihiin ama ay ugu soo qabteen sumeyntan lagu sameeyay shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalka Uppsala. Waxa ayna intaa ku dartay inaysan hadda bixin karin macluumaad dheeri ah maadaama howlgalkooda iyo baaritaanka hay-adaha amniguba ay yihiin kuwa bilow ah. Kiiskan ayay sheegtay in ay hadda u gudbiyeen hay-adaha dacwad oogista, kuwa oo ay sheegtay in ay baaritaan joogto ah ku hayaan, waxayna sheegtay in ay sugayaan natiijada ka soo bixi doonto baaritaanada hay-adaha ku shaqada leh ay wadaan. Sida laga soo xigtay war-saxaafadeedka ka soo baxay isbitaalka ayaa waxa ay sheegeen in 3 ka mid ah shaqaalahooda la tuhunsan yahay in la sumeeyay. Madaxa dhanka ammaanka ee isbitaalka Jaamacadda Uppsala ee dalkaasi Sweden, Victor Ekström, ayaa ku waramayo in ay aaminsan yihiin in dhammaan bukaanada iyo cid kastoo dhanka caafimaadka u baahato uu u furan yahay isbitaalkooda oo aysan jirin xaalad khatar ah oo ay kaga cararaan isbitaalka. Waxa uuna sheegay in shaqaalaha qudhoodu aysan gelin cabsi iyo walwal ku saabsan xaaladooda caafimaad oo ah in ay ka baqaan in iyaguna la sumeeyo, isagoo intaa ku daray in aysan qaraabada bukaanada jiifa iyo kuwa u baahan inay isbitaalka yimaadaan aysan ka walwalin dhankaas, oo ay mudnaanta koowaad iyo muhiimadeeduba siinayaan daryeelka iyo dabiibidda kuwa u baahan caawinaada. Agaasimahan dhanka amniga u qaabilsan isbitaalkan ayaa sidoo kale sheegay in ay xiriir joogto ah, daryeel joogto ah iyo la socosho joogto ahba ay la dabar taagan yihiin bukaanadooda, gaar ahaan 3 ka mid ah shaqaalahooda ee lagu sameeyay isbitaalkooda. Wuxuuna sheegay in ay baaritaan xoogan hay-adaha ammaanka iyo kuwa ku shaqada leh ay wadaan, kuwa oo sheegay in isbitaalka maamulkiisa iyo mas'uuliyiintiisana ay si gacmo furan u caawinayaan sidii loo ogaa lahaa cidda falkan ka dambeysay. Waxa ayna maamulka guud ee isbitaalka Uppsala ee dalkaasi Sweden ku waramayaan in aysan jirin khatar amniga iyo caafimaadka ku saabsan oo isbitaalkooda hadda ka jirto, waxayna sheegeen in aysan marnaba khatar gelin caafimaadka bukaanada jiifa isbitaalka iyo sidoo kale kuwa hadda imaanayo, oo ay ka digtoon yihiin wax walba oo soo gaari karo oo ay daryeel caafimaad oo aan kala go' lahayn u fidin doonaan. Kiiskan ayay ku tilmaameen mid mar la arag ah oo ay baaritaan xoogan ka wadaan, waxayna intaa ku warameen cid kasta oo ka dambeysay oo ka mid ah shaqaalaha in la sumeeyo qayb ka mid ah shaqaalahan gacanta lagu soo dhigi doono, cadaaladana la horkeeni doono. Arrintan ayaa dad badan oo ka mid ah bukaanadii jiifay isbitaalka, eheladooda iyo qaar shaqaalaha ka mid ah waxa ay ku abuurtay walwal iyo walbahaar xoogan, maadaama isbitaalkii dhanka caafimaadka loo hiigsanayay ay dhexdiisa ka bilaabatay in la isu sumeeyo oo dhibaato la isku geysto. Halka warka kuwooda ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.